panelkeennii baan insha allah bilaabanaynaa inkastoo waqtigu nagu yaryaho madax baa insha allah nagu soo socota waxa weeyaan panelkani insha allah waxaa ila hogaaminaysa insha allah waxa weeyaan wasiir mudane Axmed Xasan wasiirka kullumaysiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Yuusuf Xasan xildhibaan golaha baarlamaanka Kenya mudane Maxamed Abdikiir agaasimaha goboleed ee IOM yaa insha allah maanta fadhigan igala soo qayb galaysa waxa mawduuca fadhiganina waxa weeyeen sida colaada dhibaatooyinkan ka curanaysa cimilada isbedelaysa sidii wadanada geesku ay tallaabooyin midaysan ay u qaadi lahaayeen siday uga hortagaan sida ay baaq midaysan ay u jeedin lahaayeen sida ay iyagiyo wadajirkoogii iyo iskaashigoogii ilaashanaya inkastoo ay cimiladu dhibaatadooda ay leedahay haddana wadan walba loo eego madax banaanidiisa sidii loo dhowri lahaa isna u dhowran lahaa insha allah maxay ahayd arrimahaas oo dhan baan ku soo falaqaynaynaa anagoo og maanta cimiladan isbedelaysa shalay waxa la odhan jiray resilience amba adkaysi maanta se ereyadii way isbedesho waxa la yidhi waa inaad la qabsatiin adaptation sidee loola qabsanayaa yaa la qabsanaya intii la qabsan weydana maxay ku dambayn doonaan waa arrimahan doonayna inaan insha allah xaggan aan ku lafagurno ku falaqayno aan ku gorfayno insha allah marka maxay ahayd waxaan siin doonaa hadalka wasiirkan siin doonaa wasiir Axmed Xasan insha allah kadibna asxaabta kale waad mahadsantiin wasiir bismillah ku socda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمان مدنيال مرويين أصحاب تالكان سوتي مد أقويان ذا إيو علم بارياشا إيو مسؤولين تكردوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب موضوعات ياد مهم وها ويان markii loo fiiriyo marxaladda hadda aynu marayno sidaan ogsoonahay geeska Afrika ama bariga Afrika ay raadeen waxa weeyaan abaaro isdaba joog ah ayaa ku habsaday saameyn weyn ku yeeshay nolosha bulshada ku dhaqan bariga Afrika gaar ahaan geeska Afrika abaarahaas waxay sababeen sidaan ogsoonahay inay bedelaan lifestyle-ka dadka hadday xoolo dhaqato ahaan lahaayeen hadday ahaan lahaayeen beeraley iyo hadday ahaan lahaayeen kalluumaysato intaba waxay keentay immigration iyo dadka inay guuraan miyiga ka soo guuraan ee magaalada u soo guuraan magaalooyinka inuu ku batay population-ka iyo culayska waxaasoo dhan ayay sababtay abaarihii dhacay saad ogsoon tihiin waxaa lagu qabtay Sharm Sheikh COP27 oo looga hadlayay isbeddelka cimilada saynis yahanada iyo siyaasiyiintaba intaba waxay xoogga saareen isbeddelka cimilada iyo raadka ay ku leedahay dadka halkan marka waxaan uga mahadcelinayaa runtii macadka Heritage oo isku soo xiray isbeddelka cimilada iyo conflictiga
marka waxaan ogsoonahay wixii aan ka soo sheekeeyey ee background hore ahaa conflictiga abaaraha ayaa sababaya dhaqanka shucuubtan bariga Afrika iyo waliba Afrika meel badan ka mid ah ee aan ku sheegnay inay dad reer guuraa yihiin xoolo dhaqato yihiin beeraley yihiin marka ay biyuhu yaraadaan ee roob la waayo oo beeruhu bixi waayaan at same time na ay yaraadaan maxay ahayd biyihii la cabayay ee dalagii uu yaraado waxaa yaraanaya lifekii noloshii lagu noolaa iyo sidii loo manage gareyn lahaa waxaa ka abuurma marka isku dhac ee lagu diriro ceelal iyo biyo iyo beero iyo wax la mid ah marka waxaad moodaa dhinacan conflictiga aad looma daraasayn xoog looma saarin laakiin inagu haddaynu nahay geeska Afrika gaar ahaan weliba Soomaaliya tusaaleyn u nahay waxyaabaha ay sababaan abaaraha iyo dhibaatooyinka dabiiciga ka dhasha isbeddelka cimilada xataa haddaad ku laabataan suugaanta Soomaalida inkastoo suugaanta aan u akhrin gabayadu waxaad arkaysaa geel loo gabeeyo oo leeyahay ama loo heesay leeyahay maxay ahayto haddii hebel iyo hebel noolaan lahaayeen ceelka laguma diideen maxay ahayd maaragtay iska fuuqsa maaragtay dhiiqada iyo wax noocaas kale taa taa waa sambal caddaynaya in weligoodba ay dhibaatooyinka ay ka yimaada maxay ahayd cimilada inay nagu lahaayeen raad qadiim ah waxaa la yidhi marka qolada heertiisa u madax celinayna maadaama ay conflictigii ay soo qaateen waxaa la yidhi maxaa xal ah sideese loo xalinayaa arrintaas waa laga yaabaa inaan kusoo laabto laakiin waxaan leeyahay xuluushii ama xalkii waa la bilaabay horta waxaa weeye xalka waa inuu noqdo mid globalka adduunyada sidai wax u xalisay meelo ka mida looga day horta waxaa la yidhi cimiladii isbeddelkeedii meeshii ha la iska difaacay hadda ha lala noolada la yidhi ha la aqbalo adaptation ha la sameeyo markaad wixii aqoonsato oo aad aqbasho ayaad garan kartaa saad ula noolan lahayd marka annagu waxaanu leenahay dadka ay saameeyeen abaaraha oo ama xoolihii ku yaraaday ama maxay ku yaraaday beerihii markaynu u guurno Soomaaliya oo Soomaaliya ka hadlayno waxaanu leenahay xeeb aad u dheer oo beddel ka noqon karta labada arrimoodba waxaanu haysanaa market weyn oo u baahan in la geeyo kalluun oo aanan ka dharjin karin oo bariga Afrika oo dhan gaar ahaan geeska Afrika dadka ku nool iyo annaga laftigayga gudaheeda saad ogsoontihiin abaartii dabadheer ee 74 dadkii la soo raray meelgii waxaa ka mid ahaa Baraawe waxaana la baray xirfad kalluumaysi ah si loo abuuro dad community ka shaqayn kara kalluunka xirfadna u leh isla markaana isticmaalo annagu marka waxaan leenahay jaaniskaasaa jiro siyaasadda waxaa jirta dowladda hadda xubinta ka nahay madaxweyne xasan sheekh uu soo jeediyey ah in dadka barakacayaasha iyo dadka abaaruhu saameeyeen soo guuray la dejiyo xeebaha loona tababaro si u kalluumaysan lahaayeen isla markaana uga maarmaan noloshii kale ay ka soo guureen beddelkeed u helaan laguna faa'iideysto ayagu aysan noqon dad dulsaarka dad kale marka waxaan leeyahay isbeddelada macnaha xuluush waxaa ka mid ah siyaasadda geeska Afrika in laga heshiiyo oo ay noqoto siyaasad lagu heshiiyey sidii dadkaasi loo samata bixin lahaa looga hortegi lahaa isbeddelka cimilada waxa ay geysanayso waxay ogsoontihiin Afrika guud ahaan waa dadka ugu yar ee dhibka ku dhaca environmentiga geysta haddana waa dadka ugu badan sometimes ee dhibaatooyin waaweyn ay ku dhacaan annagoo kale Soomaaliya hadda markii la xisaabiyo warshado waaweyn oo pollution sameeyana ma lihin haddana waana saameeyey oo markii colaadaha la fiiriyo waxay ogsoontihiin waddooyin badan oo xeebta ku yaalay way xirmeen waxaana xiray bacaad laga shaqayn jiray oo maxay markii hore bacaad celin loo sameyn jiray marka programka maalin dhaweyd intaan iska shaqaysanay lagu dhawaaqay hore lagu dhawaaqay laga hadlayay ahaa maxay ahayd initiative-ka geeska Afrika ee wasiirada maaliyadda ka hadleen xuluusha uu ka mid yahay
in laga shaqaysta blue economy oo dadka maaragtay loo jiheeyo baddana xulusha ayay ka mid tahay waxyaabaha aan soo jeedinayna annaga hadda oo aan dhiirigelinayno oo leena ganacsatada soomaaliyeed iyo dadka investorska ah iyo cilmi baarayaashaba waa inay sidii looga faa'iidaysan lahaa halkaas ay xoogga saaraan papers ka diyaariyaan dadkana loo jiheeya inay markaa halkaas wax ka soo saartaan wax badan bay bedeli kartaa sidaas leh aniga hadda inaasaan kusoo koobayaa wixii kaleetana waa kusoo laaban doonaa waad mahadsan tahay mudane wasiir axmed waxaan hadalka siin insha allah xildhibaan yuusuf xasan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا إذن سلامي سلام ديرنا وحان إذن كجا هيا تذكرر إسلي وكيل كاهي هويجا سومالية ده نيروبي مركا رنتي موضوع عن المنطقة كهذا لأنه موضوع مهم هو سببته حرير ككرد حيا إملاذي iyo colaadu aad bay isugu dhow yihiin waa laba dhibaato oo aad moodaysaba inay mataana yihiin markaad eegto sida ay u saameeyaan dadka marka run ahaantiina maanta isbeddelka cimilada waa isbeddelka ugu khatarsan iminka ee haysta geeska Afrika iyo meelo badan oo adduunkaba wax badan oo dhib badanna geystay laakiin se haddaad eegto cimilada keligeed meesha ay ka dhacdo isbeddelku ka dhaco abaar ay ka dilaacdo haddii aanay colaad jirin waxa weeyaan waa meel xalli loo heli karo laakiin marka isbeddelka cimilada iyo colaadda ay isku soo hagaagaan waxa weeyaan waa mushkilo aad iyo aad ay u adag tahay in la xalliyo khasaaro weyn iyo dhibaato weynna bulshada meeshaasi u geysta مثلا kasoo qaad iminka meelaha nabadda ee dalka Kenya abaaruhu ay ka dhaceen waa loo gurmadaa si degdeg ah wax loogu qabtaa wixii dhibaato ka iman lahaydna waa aad baa loo dhimaa laakiin meel ay colaad ka jirto isbedel cimiladana ay ka dhacday xalinteeda aad iyo aad bay u adag tahay sababtoo ah colaadda ayaa diidaysa in xalli loo helo marka dad baa is oranaya isbeddelka cimilada ayaa keenay dagaalka iyo colaadda dadna waxay oranayaan ma aha colaadda ayaa dhalisay mushkiladan isbeddelka cimilada ma kala foga midda kalena waxa weeyaan meelaha qaarkood colaadda ka sokow isbeddelka cimilada waxaa sii xoojiyey oo xanuun dheeraada gaarsiinaya shicibka ku nool saboolnimo sinaansho la'aan maamul xumo hoggaan xumo waxaasoo dhan marka ay isku soo darsamaan geeska afrikana intaa la soo sheegay oo dhanba way jiraan waa mushkilooyin dabataxan oo wada jira laakiinse waa muhiim inaan fahanno inaan wax ka qaban karno cimiladeenna oo aan bedeli karno oo aan ka dagaalami karno taana waxay ka dhici kartaa uun markii meel ay nabad leedahay oo dadku ay degan yihiin marka anigu waxaan odhan lahaa tallaabada ugu horreysa oo geeska afrika looga baahan yahay in culays dheeraada la saaro waa dib u heshiisiinta qabaa'ilada dagaalsan dib u heshiisiinta jabhadaha iyo dowladaha ka jira marka ay nabadi dhalato unbaa wax weyn laga qaban karaa sidii wax looga bedeli lahaa mushkiladan climate-ka ee ka jirta geeska Afrika waxaan arkaa bariyahan dambe inay jiraan dhaqdhaqaaqyo fara badan iyo waan badan oo isku da'aysa inay wax ka xaliyaan mushkiladaasi jirta tan ugu muhiimsanna waxa weeyaan isbahaysi inuu dowladaha iyo dadka degan geeska Afrika uu sii ballaadho sababtoo mushkiladan cimilada iyo colaaddu
ma aqoonsana xuduud ma dhihi kartid mushkilada Soomaaliya ku eg tahay annagu wayna saamaysay oo wayna soo gashay waxaa jira goobo badan oo xuduudda dalka Kenya ay Soomaaliya la leedahay oo iminka aan deganeen dugsiyadii laga soo cararay deegaanadii laga soo barakacay oo dadku ay ka sii fogaanayaan maadaama loo waayay xalli joogto ah waxaa kaleetoo loo baahan yahay sidii loo xallin lahaa mushkiladahaasi isbahaysi ka sarraysa tan deegaanka geeska Afrika oo ah regional qaaradda Afrika iyo adduunka oo dhan waxaana muhiima wakaaladaha geeska Afrika ka jira IGAD iyo East African Community oo anagu aad ugu rajo weynahay Soomaaliyana inay waqti dhow ku soo biirto isbahaysiga barwaaqa sooranka East Africa oo aad iyo aad u filayno inay si degdega loo sameeyo xiriirka xuduudada borderlands isbahaysiga wada shaqayntano ay soo korodho oo xuduudan gumaysiga ee xakameynaysa shicibka iyo xoolaha dalka in la isu furo مثال waxaan ka soo qaadanay hadda xawayaanku inay saameeyeen colaada waxaan xusuusnahay muddo 6 sano laga joogo maroodi Morgan la yiraahdo oo markiisi hore to Soomaaliya jubada hoose ka yimid maroodigaasi iyo xawayaankaasi intiisa badan gobolkaasi xoolaha faraha badan lahaan jiray waxay u soo carareen dalka Kenya sida shicibku ay u soo barakaceen oo ay qaxooti uga noqdeen dalka Kenya xawayaan badan oo Soomaaliya qaxooti noo anaguba oo ka soo cararay xabadda iyo colaadda Soomaaliya ka jirta marka maroodigaasi markii nabaddu ay dhalatay muddo 6 sano laga joogo dib buu ugu noqday 200 kilomitir buu socday wuxuu istaagay goobtii uu ku dhashay waxa ku xiran bahal satellite oo raacdaynaysa meesha uu marayo markuu meeshii tegay oo wax maroodi oo kale uu ka waayay ayuu dib haddana ugu soo noqday xuduudda uu soo gudbay marka mushkilooyinkaasi waxay saameynayaan dhammaanba dadka geeska Afrika ku nool mushkilooyinkaasna ma kala yaqaaniin inaad Kenya joogto iyo inaad Tanzania joogto iyo inaad Ethiopia joogto ama Djibouti aad joogto ama Sudan aad joogto mushkilo u baahan in wada qabsi guud ahaan looga hortago tan kale ee muhiimka ah waxa weeyaan dalalka aadka uga faa'iideystay wax soo saarka ballaaran ee nolosha adduunka ee reer galbeedku ay u baahan yihiin ayagana waxa loo baahan yahay inay qayb ka qaataan sidii loo xallin lahaa xaqdarrada taariikhiga ee ka jirta Afrika iyo Yurub iyo Mareykan ayagu manaafacaadka Afrika ka soo baxay iyo adduunka ka soo baxay ka faa'iideen ayagana ugu badan waxa dhibaatooyinka cimilada keenaya isbedelka cimilada marka ma suurtageli karto ayagu nolol fiican inay ku noolaadaan annagana aan dhibaato iyo rafaad abaar iyo colaad aan ku noolaano ayagana waxa looga baahan yahay in ay maalgeliyaan oo isbedelkaasi ay ka soo qayb galaan dagaalkiisa baryahan dambena ayaguna fahantooda way dareemayaan dalalkooda la qabsiga cimilada sifa loo sameeyo oo aan uga gudubno dhibaatooyinka ka jira ayaguna waa inay ka qayb qaataan xagga horumarka iyo dhismaha goobaha abaarta iyo isbedelka cimilada ay ka jirto marka waxaan leeyahay waa isbahaysi loo baahan yahay qofka ugu hooseeya dawladaha ka jira wakaaladaha ka jira in ay gacmaha isqabsadaan oo si wada jira looga shaqeeyo sidii loo badbaadin lahaa shacabka ku nool meelaha uu saameeyay aadka u saameeyay isbedelka cimilada dagaalada ka jirana xalli degdeg ah loo helo sababtoo haddii sidan lagu sii socdo waxaa rogmaya nolosha dadka oo dhan bini'aadamnimadeenna khatar gelaysa isbedelka cimiladana khatartiisa kuma ekaanaya geeska Afrika adduunka oo dhan bay saameynaysaa marka intaasaan anigu ku soo koobaya fikradda aan ka qabaa xiriirka ka dhaxeeya
isbeddelka cimilada iyo dagaalka iyo colaadda. So now we will shift in English for Mr. Mohammed Abdike, as IOM Director, Regional Director, how we can deal with climate change, especially for immigration. We know that is a big issue in our region. Thank you. Assalamu alaikum. I apologize for speaking in English because everybody tells me my Somali Suju is terrible. So I'll try to speak in English to make sure that you understand me, and you can blame the MP for making me speak in English for that. When I came to this region in 2019, and I'm starting with that story because I came to the Eastern Horn of Africa because it was a beacon of hope that time. We had, talking about Somalia, was about elections coming up and moving from one government to another government. That was in 2019, 2018. In Ethiopia, we had gone through the peace agreement between Ethiopia and Eritrea. And we are looking at, after 20-something years of conflict, of a peaceful resolution. And in 2019, 2020, we had the two male egos in South Sudan signing the comprehensive peace agreement. So everything in the Horn of Africa was looking positive, that we're all going in the right direction in 2019. Now I cannot say that. And why I'm not saying that is the correlation between climate and conflict and displacement and migration that all have come together. In 2019, I'll give you the figures. We had 4.5 million displaced people in Eastern Horn of Africa, 4.5 million. Out of the 4.5 million, 1-point-something million were refugees, and the rest were internally displaced people, IDPs. Today, we are talking about 13.8 million people who've been displaced in our region. 10 million of them being IDPs. These are people who've been displaced because of conflict, and 3.8 million people who are refugees in our region. And I'm not talking about climate change yet. I'm just talking about conflict, those who've been displaced by conflict itself. So I'll talk about three things: the drivers of migration, and the drivers of mobility, and the drivers of displacement in our region, connecting that to climate change itself. Number one, and the correlation is very clear, political instability in our region. If you look at the number of people who've been displaced because of political instability, either it can be in Somalia or South Sudan or Ethiopia, the numbers are in the millions every time. And there is a correlation also with conflict and climate change. So when you talk about 13.8 million people, and the numbers are going up every week, it shows that without political stability, we will not have to deal with the climate issues themselves. And the number of people being displaced in our region will continue to increase. Number two, the drivers of migration and displacement, and I'll come back to the first one also, is climate change itself. If we talk about climate change, today you go to Somalia, we have millions of people in need of food assistance. If you go to Somalia today, you have the correlation between climate and conflict, where pastoralists and agrarian agricultural specialists are also fighting each other. If you go to northeastern Kenya, you have exactly the same situation of climate change impacting a large number of our populations in the whole of northeastern and eastern province in Kenya. And if you go to South Sudan today, you go to a city called Bentiu. I don't know how many of you have gone to South Sudan. A city is under the water for the last 9 months. A whole city is underwater because of the rising waters of the Nile River that have displaced a whole town that are now looking for other places to live in. But it's not just about drought. You have drought in Somalia, you have drought
in northeastern Kenya. You have drought in Ethiopia. But you go to South Sudan, you have both drought and flooding. So one part of the country, there's a huge drought. One part of the country, you have a huge displacement because of flooding itself. So there's a connection between the climate change and the political instability itself. If you go to Burundi today, the rising waters of Lake Tanganyika, we've displaced hundreds of thousands of people in Burundi every single day who are being displaced because of the rising waters of Lake Tanganyika. And the connection to this also is with the economic disparity. So you have the three main issues that we need to look into. One is the political instability and how that impacts climate change. Two, climate change itself, which already is displacing hundreds of thousands. Somalia alone, we're talking about over 1.3 million people alone who've been displaced the last 6, 7, 8 months alone. And that we're talking about those who've been displaced in the current drought itself. But if you look at food insecurity in the whole region, you're talking about over 40 million people who require assistance, who require food, not just in Somalia, but also in northeastern Kenya, in parts of Djibouti itself, in parts of Ethiopia itself, all that being impacted by the reasons of climate change. So you have the political instability, you have the climate change, and the last one, which is connected to the two also, is the economic disparity. If you look at the gap between the rich and the poor, if you look at the impact of COVID-19 the last 2 years, which has brought more people below the poverty line, it means we're going to have more people on the move. Many of you, when you talk about Libya and the Mediterranean Sea, that is something that everybody understands. But when I tell you that the largest maritime migration route in the world is in the Horn of Africa, nobody believes that. That is the largest migration route. So if you come from the Horn of Africa through Djibouti, which hosts hundreds of thousands of migrants every single day, and if you ask them, why are you moving from your home to go through Djibouti and Bosaso and the Red Sea and Yemen trying to reach Saudi Arabia, they'll tell you two things: conflict, climate change, we lost all our assistance, and three, economic reasons. We are moving because of economic reasons. Just to give you the numbers, we said about 13.8 million people displaced because of conflict, over 40 million people in need of food assistance, and at the same time, over 150,000 people cross into Djibouti every year looking for assistance. Over 150,000. Djibouti, a small country of less than 1 million people, about 1 million people, hosts about another 1 million more people in this country who have left the neighboring countries because of climate, political instability, and economic reasons. And the majority of them either stay in Djibouti or cross the Red Sea to Yemen. As we speak right now in Yemen, we have 45,000 Ethiopians stranded in Sana'a and in Aden that we're trying to move out of Ethiopia. As we speak right now, Saudi Arabia deports about 100,000 Ethiopians every single year back to Ethiopia. For Somalia, we don't count, but the number is about 20 to 30,000 Somalis who are deported every year from Saudi Arabia, who land in Mogadishu airport that we don't know about all the time. So you can see the configuration, correlation between migration, environment, climate change, instability, and the whole issue of climate change all coming back together. I think I'll stop here for now. waxaan ugu soo biiray mudane maxamed cabdi adar taliyaha sare ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو لو حنك عذر داري إن صوت ضحي وقت جيبا مقرن ساي وحان قاتئ من جهي صدق دي بركة. أقولين وحان ربائنا بوجادين يأمان هل كانوا جسوا تشيديو دولة جيبوتي اليوم معد كان هيريتاج سواء أبابولي صدق ذنبري كلن كان يمدرسن شرفت له runtii
waxay soo xusuusisay ma garanaysa markaan dhegaystay aragtida kala duwan ee qiimaha badan research paperska dad Soomaali ay soo diyaariyeen haddii alla ku samagolay doodihii iyo falaaladii discussion meesha ka dhacay waxaan aad ugu farxay oo ay soo xusuusisay Soomaaliya weli inaynu rajo leenahay oo aynu haysanno human capital isbeddel samayn kara haddaynu diyaar u nahay isbeddelkaas hadda ka hor anigoo Pakistan ka shaqeeya UN taan u shaqayn jiray magaalo la yiraahdo Peshawar baan ka shaqayn jiray waxay ahayd baan u malaynaya 2007kii xafiiskaasaan madax ka ahaa waxaa dhacday in 2 milyan oo Pakistaaniin ay barakaceen dadka waxaa barakiciyay dagaalkii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Taalibaanka waxaa lagu eedeeyay inay maartay dadkan qabaa'ilka degan dhulka Afghanistan xuduudda la inay taageerayaan Taalibaanka marka ciidamada dawladda lagu fasaxay dib badan baa dhacay dad badan baa magaalooyin ku soo qaxay marka aanu shakada waxaan ka soo wadaa waxaa ii timid dad badan baa iman jiray waxaa ii timid secretary generalka NRC naag aan baa la odhan jiray NRC waa Norwegian Refugee Council anay marti ahayd 2 beri bay ila joogtay meelo badan baan soo mariyay markaasay tiri yaa tahay aan Soomaali baan waxay tiri Xasan Cali Khayr ma taqaana ma aqaanayn marka Xasan ma ahayn ra'iisul wasaare waxaan u maleynayaa inuu ahaa madaxa xafiiska NRC ee Nairobi regional office marka su'aal bay weydiisay su'aashii baan rabaa marka maadaama aad tii eliitkii Soomaaliyeed inaan anna idin weydiiyo bal wixii fikirkiina waxba hay jawaabina laakiin waxay ila noqotay arrin aan weligeed ka bixin maskaxdayda waxay tiri niyow nimankiina Soomaalidii rag iyo dumarba dadkii aan ka bartay dad karti leh dad hogaamin leh dad ma garanaysaay dynamic oo la yaab leh maxay ku dhacday bay tii inaad intaad isu timaadaan aad waddankiina iyo dadkiina xal u heshaan Soomaalida marka bal su'aasha idinna waa ka maanta dadka halkaa fadhiya ra'yigiina marka saaka waxaan iyar dhegaysanayay doodii ku saabsanayd dialogue dhammaantiin halkaasaan isugu wada tagnay waxayna tusaysaa inaan diyaar u nahay waddankan in xal loo helo xalkiina idinkaa gacanta ku haya marka waxaan rajaynayaa maanta waa maalinkii u dambeysay isu nimaadno ee la wada hadlo ee fikir iyo aaraa la dhiibto bal 3 beri wixii la soo qabtay qoladan heritage iyo qalinleyda u joogta inay si fiican inoogu xafidaan nasiib darro inta badan waqadaha la soo dhiibayo waxay u badnaayeen af Ingiriis dadkeenu af Ingiriis kuma hadlo intaana eliitka inta dibadaha ka timid iyo inta iskoolada gashay baa ku hadashay waxaynu ka wada hadlaynaa laakiin waa xaaje aad iyo aad xasaasi u ah climate change waxaa la leeyahay climate crisis waxaa la leeyahay adaptation waxaa la leeyahay mitigation bal ninka Soomaaliga ee reer miyiga ee xoolo ku haysta meel miya bal intaas aad uga dhaadhicinaysa wixii haddaan loo turjubin aad baan ugu faraxsanahay shalis wax mee inuu wariyihii inoo hogaaminayay banalkan uu yidhaahdo war aynu u helno erayada noocaasa erayo ku habboon oo Soomaaliya climate-ku waa arrin adduunka maanta wada haysata xaqiiqo jirta weeye ubadkeenna in la baro u baahan yahay reer miyigeenna iyo magaalooyinka in la baro u baahan yahay halka hadda inta aan kaga tago climate change markii aynu ka hadlayno horta intaana ka tegin waxaan kaloo habboon in la sameeyo mechanism follow up oo wixii aynu ku wada hadlay aan halkaa lagaga tegin shalay waxaa la lahaa waxaa dhici karta biyuhu dhulku ma qabtaan way socdaan cilmigeennu usan biyaha raacin halla qabta isagana ha laynoo kaydiyo mechanism lagu follow up gareeyana macadkan heritage ha sameeyaan Soomaalidii weliba waxaan odhan lahaa dad volunteer oo waxa kala shaqeeyana hal la helo oo wixii dasi dawlad iyo shacab aynu u hirgelin lahayn aynu ka shaqeyno arrinta climate change-ga kulli wax badan baa laga yidhi aniguna ma rabo waqti badan inaan idinka lumiyo mid baan idiin sheegaya climate change-gu ma cusba waxaa cusub habka hadda wax loo fasirayo
soddon sano afartan sano waxaa lagu eedeynaya climate change-ga inay mas-uul ka yihiin dadka dhibaatadu hayso dunida saddexaad idinka waxaa la leeyahay saxarihii baa dhulkii baa desertification waxa la yidhaha ayaa socda saxarihii baa soo durkaya waddamadan saaxilka la yidhaahdo waxaa dhici kara ma garanaysaa soddon sano inuu sheeko noocaasoo wakaynu geed abuur iyo bacaad celin iyo aynu ku jirnay ma garanaysaa soomaaliya waxay anugu wakaaladii dhirta iyo daaq focusku markaa wuxuu ahaa bal in dhirta dib loo beero in ma garanaysaa nabaad guurka la ilaaliyo midda kale aad aan ugu mashquulina waxaa weeye waxay yidhaahdeen dadkiinaa badan population control ha la sameeyo wallaahi baan kugu dhaarshay soomaali haddaynu haddii la isku daro kuwa etoobiya jooga kuwa kenya jooga kuwa soomaaliya iyo jabuuti hal magaalo bombay la yidhaaha ama kalkata oo indiya inaga badan marka dad waynu u baahannahay dadkiina waxaa la yidhi waa human capital laakiin waxaynu u baahannahay dad wax soo kordhinaya oo oole ma garanaysaa wax qabsanaya laakiin ma aha in dadkeenu ka badan yahay oo dhulku aynu cadaadis badan iyo pressure badan aynu ku hayno anigu waxaan u arkay waxyaabahaas oo idil inay kaga cararayaan magdhow inay bixiyaan maxaa yeelay aasaas waxaa u ah climate change waxaan la leeyahay muxuu ahaa green gaskuna wuxuu ka imanayaa baa li warshado innagu warshado ma lihin carbon footprintka soomaalidu waxaa hadda sheegayay nimankii ahaa khubaradii inoo warramaysay inuu zero point something imaaraadka waxaa la yidhi waa boqolkiiba 30 marka green house-ka waxaa xidhiidhka hadda green house ka dhexeeya iyo abaarahan iyo wixii way cadda laakiin inkastoo ay oggolaadeen inay bixi wax la yidhaha muxuu ahaa losan damage haddana magdhow inay bixiyaan laakiin magdhowaas dhayal ku iman maayo waxaad xusuusataan sigaarka iyo kansarka xidhiidh ka dhexeeya in badan bay diidanaayeen weliba shirkadaha sigaarka sameeya ay iyagu research iyo dacayado iyo waxay fidinayeen hadda waxaa weeye meelo badan baa adduunka maxkamada la saaray lacago badan baa laga qaato magdhowa hal qof ma sheegi kartaa inuu dunida saddexaad ku nool soomaalidana iska daa geeska afrika oo kansar intuu dilay magdhow aynu kaga qaadanay shirkadahaas su-aashu waa maya tan lafteeda marka waxaa ka mid oo kale gun controlka waad aragteen america 24 saac waxaa laga sheekeynayaa hubkan xadidhaafka hubkaas muxuu dilayaa america wuxuu dilayaa dhowr qof laakiin hubka soomaaliya lagu gumaadayo xagguu ka yimi innagu hub ma samayno xabad ma samayno waxayna saaran cunaqabatayn haddana maalin walba xamar qarax baa ka dhacay qaraxaas explosiveka xagguu ka imanaya yaa sameeyey yaa ka baac mushtaraya yaa ka dambeeya su-aale waxaa weeye muhiima u baahan inaynu maar yaynu ka doonnaa magdhowda dadkeenna maalin walba ku laanaya wixiga yaynu ka doonnaa magdhowda dadka maalin walba ku sheegayo maxamed badaha intay gudbaan nolol raadsanaya oo ku waxaysnaya baas marka arrinta magdhowu waxay u baahan tahay dad capacity leh oo waxaan baadhis fiican ku samayn kara oo qiimayn kara maanta haddaan shaksi qabsado oo yidhaaho dembi magdhow baan u haystaa waxaa le soo caddayso maxaa kaa maqan waxay naga maqan ma garanayno gobolka anu aan ka idin 3,800,000 oo qof baa baahi la ildaran waxaa weeye waa abaarta maanta jirta abaaruhu berigii hore si la sheegay 10 sano mar bay dhici jireen hadda maya waxaa weeye waxaa isbedelay frequency-ga ay ku imanayeen weligan maynu arnay 5 sano roob diin waa naadir anu qof weyn baana garan maayo haddii uu roob la waayo xitaa abaartu localized baahay waxaa weeye mandaqadana magaranaysa gobolkan hadduusan roob lahayn ka ku xiga ee hayaanka hal maalin loo socdaa dadku tegi jiray hadda waxaa weeye meel loo ciirsada male dhulkeennii oo idin anuu garan maayo kenya taana inaynu gudubno oynu dee santa baalki ya soo lama gudbin hadde waa maalinka dambe waxay dadku inugu khasbaysaa inaan tagno congo marka waxay ila tahay ya inaynu maaragtay congo tagno
marka waxaa weeye arrintu ma sahlana anugu shirkii maalinka dhaweyta ee wasiirada finance ay ka hadleen laba arrood baa ka qaatay haddii magdhow aan rabno inaan si serious la u dabagalno horta magdhow maaha lacag low hanging fruit oo intaynu qaadano sheefka aan gashanayno haddii lacagta la helo xitaa waa inaan leenahay kow capacity-gii aynu ku hirgelinayno mashaariicdaas labana waxaa la yidhi farqu dhafool ma dhaqdo wasiirku wuxuu inoo sheegay in haddii ay jabuuti keliya ama soomaaliya ama hal waddan oo afrikaan istaaga cidi dhegaysan mayso laakiin haddii hal cod ay ku wada hadlaan oo hal mowqifka ay maaragtay ay ka yeeshaan arrintaa waa loo soo joogsanaya dowladaha gobolka waxaan ku waaninayaa waraynu dadkeenna u fiican hawsha u dirsanno oon 4.5 loo qaybinin ninka mutacallimka ninka kartida leh qofka wax qabanaya mas-uuliyadda ha loo dhiibo soomaadan faham hadday laga maarmaan noqoto 4.5 in ku sameeyo bal kaa mas-uulka hoos dhiga mid xoogaa garanayo hawshii wadi kara intaas aad baad mahadsantihiin waxaan imika u gudbaynaa su-aalihii insha allah kastoo waqtigu haddeed uu soo kooban yahay xaggaasi waa faysal baan u malayn waayo microphone-ka u geey xaggaas mahadsanid runtii magacaygu waa faysal rooble maanta waxaan u malaynayaa muddo 3 sano ah waxaan ka shaqaynayay planning 10 sano waxaan ka shaqaynayay environmental affairs and sustainability waxa la yidhaahdo Los Angeles City Department inta shirku socday waxaan aad ugu qushuucayaa in heerka sare ee isbeddelka cimilada iyo waxyeeladiisa si fiican loo qeexay all the panels ilaa maalintii ugu horreysay gaar ahaan iyadoo xogta laga soo maanguurinayo cilmi baarista ay United Nations iyo UNICEF iyo hay-adaha adduunku sameeyeen inanka IOM walaalkayna si fiican buu tirooyinka iyo waxa meesha dhibaatada jira aad u qeexay statistically speaking laakiin iyo saluug yar baa igu jira saluuga igu jira waxa weeye ilaa intii ay doodu bilaabmatay waxaan kala ahay bringing the discussion down to where meesha Soomaalidu wax ka qabsan karto of course haddii loss and damage-ka magdhowga qasnada loo sameeyey wixii naga soo gaaro waa alla mahadi laakiin climate change-ga iyo dhibaatadiisa waxa iyana qayb weyn ka ah waxa aynu samayno Soomaali ahaan iyo bulsho ahaan maynaan taaban lamana soo hadal qaadin si fiican ugumaynaan munaaqashoon what can we do maalinta dhow waan weydiiyey wasiirada maxaa inoo diyaara haddii maanta la yidhaahdo Soomaaliya loss and damage-ka waxbaad ka helaysaan maxaa inoo diyaara waxaan ku soo gabagabeynayaa magaaladan ka shaqeeyo markii ninkii madoobaa George Floyd la dilay mayorka iyagu decree page aan buuxinayn buu soo saaray magaalada Los Angeles waxay ku taariikh noqotay sida Mareykanka oo kale midabta koor bla 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 therefore waa inaan hadda wixii ka dambeeya address karaynaa taasaan la wareegay anigu waxaan ku xigsiiyey within a year action plan detailed action plan-kii waxaan markaa u gudbiyey CLO-ga ama COO-ga si uu action plan-ka intuu eego uu u eego inta kharash ay u baahan tahay 20 million 10 million 20 million baanu hadda ku helay bimacnii waxaan rabaa inaan dadka ku
fogofogeeyo ama aan ku riixo, if that's the right word, let's bring it down to maxaa inoo diyaara. And I would really like cidi hadday comment ka samayso gaar ahaan wasiirka Soomaaliya ka socda, maxaa inoo diyaara. Waxaan waan qudarayn karnaa laakiin maxaa inoo diyaara. Waa mahadsantihiin. سؤال كله حق آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Cabdullaahi Xaaji Cabdiwali. Su'aashaydu waa dhinaca xeerarka iyo sharciyada geeska ama guud ahaan East Africa gaar ahaan dadka Soomaalidu intaan ognahay waa dad reer guuraa ah. waqtiyada abaarta dhib badan ayaa waxay kala kulmaan socodka. waxaan tusaale u soo qaadanayaa dhowr kees waa Soomaalida NFD abaari hadda u dambeeyay markay webiga Tana River gudbeen ee dhulka ugu xiga ee mukaambadu degta ay tageen si policy ah oo adag ayaa dadkaas loola dhaqmay waana la soo celiyay. marka waa problem movement. Soomaalida xuduudda Somali State iyo gobollada ku xiga ama Puntland ama Galmudug markay xadka gudbaan ee xoolo dhaqatadu ay tagaan degaan ka baxsan degaamada ay reerahoodu degan yihiin iyaguna dhib bay kala kulmaan. isla Soomaalida gudaheediina markay qabiil xoolo dhaqata ay ka gudbaan oo qabiil kale u gudbaan dhib ayay kala kulmaan. marka sidee loo address garayn karaa xuquuqda socodka xoolo dhaqatada ee mantiqada geeska. waa mahadsantihiin. وايه حقا magacaygu waa Cabdiqani Qorane. Su'aashaydu waxa ay tahay marka la fiiriyo saameynta isbeddelka cimilada dalka siyaabo badan buu uga muuqdaa. darisyadan sidaas oo kale waxaadna moodaa in ka dhaxayso calaaqo dadka Soomaalida ah iyo abaarta iyo dadka Soomaalida ah iyo daadadka. markaad fiiriso dhulka labada gobol ee xorta ah ee Soomaaliya la yiraahdo waa hadda middan laga sheekeynayo oo leeyahay abaarihi waa soo dhawaadeen. gobolka Soomaalida marka la eegana Ethiopia marka loo fiiriyo inteeda kale iyaga abaar ah. Kenya marka la fiiriyana marka Soomaalida laga baxo ayaa inta badan la galayaa doog iyo barwaaqo iyo dhir la galayaa. ma calaaqa ka dhaxaysa Soomaalida iyo abaarnimada jirta. waa midda labaad qorshe ma jiraa dawladnimo masal la sameyn karaa biyahan marna dhibaatada geysanaya marna la waayiyo oo markii lagu fiiriyo hanaan aqooneed ee laga yaabo inaysan wax badan koosgareynaynin haddii la damco in la celiyo oo hadda biyo qabatin gaara kilomitir ama 2 kilomitir oo loo baxsada sanawaad fara badan baa laga yaabaa inuu abaaro fara badan daawo u noqdo oo goobo mucayan oo dhowra laga sameeyo. taa iyada marka ma lagu dari karaa haddiiba ay dhacdo magdhow inuu yimaado ama dawladda ay fan hesho Soomaaliya ka hadlahayaa ama ilaahay kuma samadiide inta deymaha lagu leeyahay la tasdiidiyo la qaato deymo cusub. qorshaha ma lagu dari karaa si loo helo ugu yaraan biyo aanan juhdi badan loo maraynin oo la isku dayay in la qabsado xilliga meesha ordahayaan waa ka baxay. mahadsan tahay. waxaan hadalka siin wasiirka kalluumaysiga ee Soomaaliya oo su'aasha u horeysay ku socoto ahayd ta magdhowda iyo maxaa loo yaala. bismillaahi rahmaani rahiim. sida aan maqlaynay ama aqoonyahankana weydiiyey su-aasha waxay ahayd Faysal maxaa inooga yaallo haddii magdhow aanu helno maxaa inoo diyaarsan. sidaad ogsoon tihiin gabi ahaan barnaamijkan maxay ahayto isbeddelka cimilada ayaa wuxuu soo maray marxalado kala duwan. magdhowga markii hore lama ogoleyn waa first time hadda
oo ay dowladaha horumaray ku qancaan bal in wax uun ay celiyaan marka laga soo tago cid kasto qorshaha ay leedahay u gaarka ah oo dowlad kasta national plan bay leedahay marka laga soo tago haddana sidaan maqlaynay ood ogtihiin maalmo dhoweyd waxaa laga wada shaqaynayaa wax geeska afrika wada leeyihiin oo maxay ahayd looga faa'iidaysto dhaqaalaha ka soo geli doona muxuu ahaa magdhowga iyadoo la tixgelinayo cid kasta iyo priority-ga ay leedahay ee gaar u samaysan doonto marka qolo walba waxay ku mashquulsan tahay sidii iyada wixii soo gaaro ay maaragtay u manage garaysan lahayd waxaana ogahay dadaal badan ayaa laga wadaa annaga dhexdeeda sidii aan arrintaa ugu diyaargaroobi lahayn siaad ogsoontihiin shirkii hadda u dambeeyey ee ka dhacay sharma sheekh waa markii ugu horreysay ee dad soomaaliyeed ee madax ah iyo aqoon-yahanaha oo gaaraya 50 qof ka badan ay ka qayb galaan shirkan isbeddelka cimilada waxaa lagu tegi jiray dad yar oo 4 qof iyo 3 qof wax la mid ah taa macnaheedu wuxuu yahay in direction uu jiro bal dhibaatada dadka wada gaartay sidaynu annagu qaybteedii ogeyn lahayn waxa meesha ka socdo in maaragtay loo diyaargaroobo marka diyaargarowgu wuu jiraa dee ma odhan karo nuucaas iyo nuucaas uu yahay oo wax under processa weeye laakiin fikraddiina way jirtaa shaqana waa laga wadaa xukuumad ahaan soomaaliya marka la fiiriyo iyo region ahaan geeska africa intaba waa mahadsantiin tu kalaa jirto xagga xeerarka loo samayn karay dadkan reer guraaga ee xuduudada ka tallaabaya gaar ahaan NFD maxaa laga qaban karaya runtii way jiraan dad geley u badan oo beryahan dambe ka gudba gobolka Soomaalida ay u badan tahay gobolada aan jaarka lanahay ee nagala taana khilaaf bay keentay khilaaf xagga daaqa iyo biyaha dadkii meesha loogu tegay laakiin waddanku wuxuu leeyahay dastuur buu leeyahay sharciyo dhisan buu leeyahay marka looma baahna xeer cusub in loo sameeyo waxaa loo baahan yahay in dastuurka jira iyo sharciga meesha ka jira in uu hirgalo nasiib daradu waxa weeyaan geelaydu marka ay yimaadaan geeloodu waxay daajiyaan beeraha dadka ay u yimaadaan marka ay ceelasha ka waraabayaanna qaarkood way hubaysan yihiin oo ceelashii bay soo goosanayaanoo colaad aan loo baahnayn bay keenaan taana khilaaf weyn bay keentay laakiin waa arrin sahlan anigu naf ahaantayda waxaan ku soo dhex koray deegaan aan Soomaali ahayn aabbahay meel cidla isla ah oo muslim kale aanay deganeen ayuu degay shicibkii baan dhex degnay guri buu ka dhistay ganacsi buu ka samaystay annagaa ku dhalanay marka anagu waxaan raalli ka ahayn sharcigii meesha ka jiray marka dad Soomaali oo fara badan baa Kenya kala degan oo si nabada u nool Kenya iyo Tanzania iyo Uganda Congo daba uu sheegayay Maxamed Cabdi Adar maba ka foginba waa u sii soconaa oo reer guraaga meel uu ku istaagay ma jirto geel ma wataane ganacsi ayay ka furanayaan oo way ka shaqaysanayaan oo xaas bay ku yeelanayaan caruur bay ku dhalayaan marka sida ugu muhiimsan waxa weeyaan in dadkaasi geel jiraha markay yimaadaan warbixin la siiyo oo laga dhaadhiciyo sharciga meesha ka jiro beeraha dadka ay beerteen inaanay dhex gelin biyaha inay sida dadka kale ula wadaagaan laakiin se dhaqanka reer guuraanimada ee weliba geelaydu waa mid kulul oo had iyo jeer colaad dabada ku wato sababtoo waxay ka yimaadeen cimilooyin cimilo culus oo biyo la'aan iyo daaq la'aan ah laakiin si cadaalad ah maalin dhowto lagu xalliyay mushkiladooyinkaas siyaasiyiintii gobolka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintii gobolkii nimankaas ay tageen baa la galay waana la xalliyay runtii laakiin inta badan markaad hoos u sii dhaafto dadka reer guuraada khalad kale oo iska soo gelaya meelaha kale xaq way u leeyihiin inay soo galaan maadaama abaar ay ka yimaadeen laakiin ayaguna waa inay nidaamka meesha ka jira ay dhowraan oo waa meel nidaam uu ka jiro
xeer dheeraad ah oo loo baahan yahay ma jiraan gobolkan Tana River iminka Soomaalidaaba u badanba hataa xildhibaanada iminka ka soo gala kala baro bar waa Soomaali dadka reer guuraaga baana soo galay oo ku soo batay waana dadkii ay ugu yimaadeenna si nabada ayay u wada nool yihiin oo wax dhiba kama jiraan waxaan doonayaa inaan wax yar ku darsado nin su'aal ka wareystay haddii mag la bixiyo magtaasi si cadaalada oo fiican ma lagu diyaar ma u yihiin dalalka qaata shirkii ugu dambeeyay ee cimilada isbeddelka cimilada ka dhacay COP 27 ee ka dhacay Sharm el-Sheikh meeshan Masar madaxda Afrikaanku madaxweynaha Kenya uu ka mid yahay waxay bilaabeen Africa Carbon Markets Initiative carbon initiative-ku in la iibsan karo oo marka dalka Kenya oo kale waxaa iminka beeralaydu ay bilaabeen carbon credit inay helaan inta la tijaabiyo marka dhaqaalaha ka soo gala 20% qaaradda Afrika carbon markets kaasi dalka Kenya soo gala midda kalena Kenya isbeddel badan bay xagga korontada iyo energy-ga ay ka samaysay 80% energy-ga Kenya lagu isticmaalo waa green energy renewable energy waxaa ka mid ah dabeesha qorraxda iyo hydroelectric iyo geothermal way suurtoobaysaa Kenyana way fulin kartaa arrimahaas sababtoo ah nabad baa ka jirta waana waddan dimuqraadi ah laakiinse haddii colaad ay jirtay waxaasoo dhan ma dhaceen marka waxaan anigu kusoo gabagabayn lahaa in saldhigga xalliga mushkilada abaarta iyo isbeddelka cimilada in laga heshiiyo dagaalka iyo colaadda ka jirta in la xalliyo mushkiladaha ka jira oo si nabada dadka ay u dhaqmaan haddaanay nabad jirin waxba lagama qaban karo isbeddelka cimilada taasaa muhiima marka culeys dheeraada waa inaan saarnaa sidii dadka loo heshiishiin lahaa sidii nabad loo heli lahaa sidii hubka loo dhimi lahaa sidii colaadda loo yareyn lahaa markaana awood baan u yeelanaynaa sidii aan isbeddel uga samayn lahayn xagga arrimaha cimilada sababtoo aan nabad la'aan wax weyn oo xaggaasi laga samayn kara oo ii muuqda aniga iminka ma jirto waayo waxaan arkaa waddamada nabadda ah sida ay u horumarayaan oo ay u degayaan oo la dagaalamayaan abaarta iyo dhirla'aanta iyo waxaasoo dhan Shukran, Mr. Abdelkader. The question was the link between Somalia and the drought. Thank you, Mr. Chair. I think let's be clear here that drought is not only a Somali issue. Climate change is impacting everywhere in the world. If we talk about by 2050, we will have over 200 million people displaced because of climate change. 200 million, and that can even be more if we don't do our jobs today. But why is Somalia much more impacted on drought than any other country in the region? One is instability. Let's be honest with each other. We did not have strong institutions countrywide that can start planning and working on climate issues. That's number one. Number two, we also have a country that has a lot of extremist groups that are also being part of the problem itself. So we have much bigger problems to deal with than just the climate change issues that we have today. Number three, institutional capacity. Do we have those capacities in the institutions we have right now? Does the Ministry of Environment and Climate Change, it's great we have one now, does it have enough capacity to be able to deal with the issues we're facing today? The same thing with the ministries of fisheries, the same thing with every other ministries. Do we have those capacities? Is it being worked on now? Yes. From the top all the way down, the government is working really hard to build those institutions, to build those capacities. And they're doing that themselves to make it work. How can we, not just in the international community, but also use Somalis in the diaspora who have the capacity support the current government in dealing with those issues are the questions we should ask ourselves. Number four, is our lifestyle
continuing to be the same? Is our pastoralist life that we want going to be the same? Do we need to change that lifestyle? Is it what we want to continue having today? You want to continue having your camels, your cows, your goats, everything else. Is that life any more sustainable for us to go ahead? But I also know of Somalis, a Somali man from Australia who has bought hectares of land, I think in Southwest State, and he's planted Napier grass. This is a grass that is going to be resistant to drought, and he's fenced it up, and what he's made sure is every time he can move his animals around so they have enough livestock, enough grass to be able to help himself and his community. So we really need to think out of the box. But Somalia is not on its own. Somalia has signed the Free Protocol movement in IGAD, which means people can move across borders. Somalia has signed what we call the Transhumans Protocol with IGAD, which means now the pastoralists can move across borders from Somalia into Ethiopia, into Kenya, into other countries as well. There's a protocol that has been signed. And Somalia, just in July this year in Uganda, signed what we call the Kampala Declaration, which looks at not just loss and damage, but also looks at how they can deal with mobility, displacement, and migration itself. And most importantly, how we're going to bring the whole issue of climate and conflict as a discussion point amongst our people inside Somalia. su-aasha kale taa ku dhex jirta waxay ahayd mudane wasiir qorshaha dowladda Soomaaliya u yaala dhinaca biyo xidheenada. waayahay sida ogtihiin Soomaaliya waa dalalka u nugul haddan laga sheekeynayo abaarta iyo roobka ama biyaha daadka labadaba. marka waayahan dambe oo dhan waxaa lagu jiray sidii loogu jihayn lahaa wax alla wixii fan la helo sidii loo samayn lahaa biyo xireenno daadka in la celiyo iyo in maaragtay dhir badan la beero oo iyadan looga hortago desertiga iyo saxaraha dhacay. biyaha inkastoo uu nala joogo wasiirkii biyaha qorshe fiican ayaa laga sameeyey oo runtii aan isleenahay xilliyada soo socdo daadadka iman doona waxaa looga faa'iideysan doonaa beeraha. halkan waxaan rabaa inaan iyadana raaciyo. waxaa ogsoon tihiin sida inta haddaba laga dhawaajiyey security-ga Soomaaliya ayaa qayb weyn wuxuu ka yahay development-iga. ayadoo aanan la helin nabadgelyo lama horumari karo. nabadgelyadiina waxaa hor istaagnaa muddo 15 sano asa ogtihiin nimanka fikirka xagjirka qaatay runtii xukuumaddan cusub iyo dowladdan hadda go'aankeedu uu yahay inay dalka ka saaraan si loo helo stability dadku ay kaga fakeraan horumarkooda. sababtoo ah meeshii aad damacdo inaad mashruuc yar geyso ama aad biyo xireen ka samayso ama aad ka samayso maxay ahayto wax yar oo horumar ah waxay noqonaysaa meel u xiran iyaga ama dadka joogaba aysan awood u lahayn inay aqbala qaataan mashruuca noocaas kale taa. oo marka furihii dalka horumarkiisa waa nabadda oo iyadana aan isugu geynay priority-ga koowaad ee hadda aan ka shaqaynayno. marka biyaha mashruuc fiican baa mashaariic badan baa ka socdo sida aan rajaynay insha allahu sanadaha soo socdo waxa weeye biyo xireenno fiican oo biyaha noo celiyaan samaysan doonaa. also waxaan wax ka wadnaa green energy-ga iyo maaragtay korontadii solarka ahayd iyo barnaamijka sharciyadii ayaan baasintoodii hadda golayaasha la marsiinaya ood ka warhaysaan. marka waxaanu isleenahay insha allah wax badan baad ka qaban doontaan hadda xilliga soo socdo. waa mahadsantihiin. waad mahadsantihiin. inkastoon jeclayn inaan doodeenna sii wadno waxaa la ii sheegayaa haddeed inay madaxdu nagu soo dhowdahay. marka doodeenna xaggan baan ku joojinaynaa. mar kale macadka heritage baan ugu mahadnaqaynaa fursaddan qaaliga uuna siiyey. waanad ku wala mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
mudanayaal iyo marwooyin aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin dulqaadka aad muujiseen inaad dhegaysataan panelka aadka u quruxda badnaa ee ahaa kii ugu dambeeyey ee madasha aragti wadaagga heritage tii lixaad mar dhow waxaa inoo imaan doona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo inoo xiri doona shirkan madasha aragti wadaagga heritage teedii lixaad laakiin inta ay na soo gaarayaan aan u yeero gabar dhalinyaro ah oo farshaxan ka samaysa oo deegaanka farshaxan ka samaysay bal inayna tusto farshaxankeeda quruxda badan Faaduma بسم الله الرحمن الرحيم دمانتينا قفل بمنصب كوكو فريا يانكو سلامي أنا استعرفين دونا وحنكو بلا أنا استعرفين دونا ومقعي وفاطمة أويس عثمان وحنا هاي فرشحنيانت وفكر كذا يو درين كذا بكو عبرت فرشحنك السنة كان وسنة كيلوات أنك سو قيب قالوا مدرسة هيريتج وحن أقوم هدي علينا إنها فرصة إيسيين موضوع أو سنة كان لقود دوديو إن أنا نيجي نفرشحن كيجا كسو بندقو سوير كوكوات one two raalli ahaada qolyaha farsamada ee gadaala ayaa weli soo saaray la sawirada quruxda badan ee ay Faaduma samaysay laakiin waxaan filayaa inay sharaxi karto inta sano ay ku jirtay farshaxanka iyo waxa hadda ku dhaliyay in ay ka samayso muuqaalo deegaanka farshaxanka waa wax aniga ilaa yaraanteeda aan samayn jiray sanado badan aan soo waday hadda dhibaatooyinka hadda ugu waaweyn oo adduunka ka taagan waxaa ka mid ah isbedelada cimilada marka bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa loo baahan yahay inay ka qayb qaataan qof walbo qaabku asiga ku cabiri karo aragtidiisa iyo fikirka uu ka qabo sidii loo bedeli lahaa dhibaatada markaan taagan oo bulshadeena iyo adduunka dhanba wada heesato marka taas ay igu dhalisay anigana farshaxankayga xirfadeeda inaan ku muujiyo ra'yigeygana ka dhiibto dadkana aan ugu qayb qaato si ay ku fahmi lahaayeen isbedelada cimilada dhibta ay leedahay li'anno dhibta ugu weyn oo bulshadeena hadda haysato waa wacyiga iyo fahamka maadaama anaga aynan fahansaneen isbedelada cimilada waxa ay tahay bulshadeena qaybaha ay kala duwan aysan wada gaarsiisneen dhibaatada ay ku leedahay hadda iyo mustaqbalka ay ku yeelan doonto sidaas darteed ayaa anigana go'aansaday inaan aniga farshaxankayga ku cabiro aan ugu qayb qaato
ومahadsantihiin dabcan waxaa la yidhaahdaa hal sawir waxa uu sii daayaa kun sheeko su-aal baa jirtaa daaya ama boorin yar aan u qabay panelkii suugaanta iyo dhaqanka oo aan hadda fursad u helay bal inaan ka dabageeyo su-aalna maaha waa boorin inta badan gabayada soo baxayay maalmihii ugu dambeeyey markii lagu baraarugay in laga hadlo deegaanka waxa ay ku saabsan yihiin wax hore iyo Soomaalida inay dhibaato geysatay laakiin dabcan markii la soo dhiraandhiriyay dhibaatada cimilada ay caalamku bilaabeen inay ka shiraan sanadkii 1992 sidii loo soo waday waxa lagu keenay labada eray ee lagu celceliyo mitigation iyo adaptation in lala qabsado iyo in wax laga qabto Soomaalida marka dhankeeda la eegana dhankan dambe in lala qabsado ayaa aad u qusaysa maadaama aanay iyagu dhibaato badan gaarsiin hawada ama cimilada inkastoo aan ku arkay warqadii ay dawladda Soomaaliya gudbisay NDC-ga ahayd inay Soomaaliya greenhouses-ka ay bixisay ay tahay 0.9% taasoo aniga aad ila badan waxay xitaa aad ugu dhowdahay South Africa 0.09 mid kale update garay malaha maan arkin laakiin UNFCCC mid ku jira oo 2020 la diray waxa ku qornayd 0.09 waa maasantahay wasiir inaad nasaxday tirada tira u qalanto waa ay tahay because tirada hore waxay aad uga dhowdaa South Africa oo Soomaaliya la garan kareen ay aad uga marka qoliyaha suugaanta haddii aan u soo noqdo waxaan jeclaan lahaa in suugaantiinu ay noqoto in madaxda lagu cadaadiyo ama la faro in ay wax ka qabtaan isbeddelka cimilada oo ay lacagaha faraha badan ee Soomaaliya ka maqan ay soo dhiciyaan intii la dhihi lahaa Soomaalida dhibaato badan Soomaalida uma geysan cimilada mid waa taasa tan kale wasiirka mar labaad wuu isixi karaa hadduu doonayo waxaa jira warqad kale loo baahnaa si loo helo lacagta inay dawladdu gudbiso NIP la yiraahdo ilaa iminka lama gudbin Faisal baa su'aal mar dhaweyd weydiiyay aniga naftayga kuma aan qancin sida su'aasha looga jawaabay sababtoo ah si loo helo lacagta labada warqadood waa inay isdaba galaan mid kaliya waxba lagu heli karo waa mahadsan tahay wali muuqaalada ayaan sugaynaa ay noo sharaxaysay Faaduma waxaad sheegtay in mar walba aad wax ka samayso dhibaatooyinka markaas taagan sawirkaaga ma heli karno laakiin bal cabir oo erayo ku cabir waxa ku qornaa sawirkaasi ay u fahmaan okay sawirka koowaad wuxuu ahaa sawir isbarbar dhigayo laba sawir mid ah abaar midna ah aaran sawirku qofku markuu arko wuu dareemi karaa wuu fahmi karaa farqiga uu u dhaxeeyo abaarta inta ugu badan qaab dabiicina way u dhacdaa laakiin inta badan anaga ayaa gacmaheena ku sababno in nabaad guur nagu dhaco abaarana nagu imaadaan cimiladeena isbedelaan sawir kalena wuxuu muujinayaa haddii anaga aan deegaankeena ilaalino hawada inay wasakhowda aan ka ilaalino pollutionka aan iska ilaalino nadaafadda aan ku dadaalno wax walbo يعني إن فهنو ديجان كان إن أنا قريب نجم دا وياهي ديجان كان هذا أنا إلى لسان وينو ونجا خلاله سكستوب يعني قطر نجسوا وجهده إن أنا قطر نقول هذا حولها قطر نقول هذا يعني واحد أسكو حيران ديجان ك بني آدم ك يحولها إن مركا سويرك كواسي دا سو عبيراي إن سويرك لبعض نوح عبيراي نتيجة ده ay ka imaan karto markii oo taas ay dhacdo oo isbedelada cimilada darteeda ay abaar u dhacdo bini aadanka dhibta ugu horeyso ugu weyn oo wajihi karto waxa waaye inuu u qaxo abaar darteed iqaleel darteed marka wuxuu muujinaa dad reer miyi ah oo qaxayaan oo magaalada u sii qaxayaan oo noloshii ay yaqaaneen ay ka soo burburtay marka dadkaas reer miyiga ah ani hal talaan ku dari lahaa sidii oo yani wadooyinku ugu fudud oo loo gaarsiin karo isbedelada cimilada waxa ay yihiin tusaalahan hadda waagii koronaha waxaa la sameeyay oo la xoogan oo waliba qasab ah oo dadka magaalada joogaan iyo dadka miyiga joogaanba ay wada gaartay
dadka miyiga joogaan access uma heli karaan social media in yaraa heli karta laga yaabaa laakiin intooda badan telefoonay isticmaalaan idaacadna way dhegaystaan marka shirkadaha isgaarsiinta ayaa waxay sameeyeen oo ilaa hadda aniga maskaxdeeda ku jirto oo aan ilaawin oo runtii talaabo aad u fiican ay ahayd waxay sameeyeen qofka markuu call uu sameeyo qof wacaba wuxuu maqlaa fariin oo ku wacyigelinayso khatarta uu leeyahay koronaha iyo siduu isaga badbaadin lahaa marka in ololo sidaas oo kale u xoogan in laga sameeyo waa isbedelada cimilada li'anno kama dhib yara koronaha hadduusan ka xooganeyn wuu ka xoogan yahay li'anno mustaqbalkan dhan ayuu tahdiid ku yahay faadumo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay inaanta aadan sawirka saddexaad gelin waxay ka dhawaajisay shirkadaha gaarka loo leeyahay inay qayb ka qaataan wacyigelinta dadka cop 27 ee sharma sheekh lagu qabtay dalal fara badan waxaa joogay shirkado gaar loo leeyahay oo dowladaha kaliya maysan joogin oo waxay saxiixayeen heshiisyo dhinacyo kala duwan leh oo ay wax uga qabanayaan ama ay la imaanayeen initiatives cimilada wax looga qaban karo meelahaana ay dhaqaale ka helayeen waxaan sidoo kale boorin lahaa in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay ka qayb qaataan shirarka soo socda ee COPska ah ee isbeddelka cimilada wax looga qabanayo waa mahadsantiin sawirka saddexaad wuxuu muujinaa hadda yani isbedelada cimilada kaliya anaga khatar nuguma ahan sidoo kale xoolaheena ayay khatar ku yihiin xoolahana bini aadamku wuu ku tiirsan yahay caanihiisan ku tiirsanay hilibkiisan ku tiirsanay si kastaba in xoolaha jiraan noolaha kale bini aadamkeen inay jiraan macnaheedu waxaa waaye in anagana aan jiri karno marka waxaan u sameeyay qaab yani meel miyi ah oo gubanayso oo wada qaac ah xoolihiina ka guurayaan oo ka qaxayaan iyaga naftirkooda marka bini aadanka iyo xoolaha iyo bii'adeena inay xiriir wada leeyihiin inaan wada ilaalsano ayuu muujinaa faadumo aad iyo aad ayay u mahadsan tahay waa ka xunnahay muuqaalada quruxda badan ee ay sharaxday idinma tusin karno farsamada ayaa noo ogolaan weyday laakiin siyaabo kale ma jiraan ay dadkan ku arki karaan shirka jooga muuqaalada sawirada waan keenay laakiin badankooda waa la qaatay saddex bis ayaalan waa gartay WhatsApp groupka soo geli wasiirka kule insha Allah WhatsApp groupka ka daawada dhiira geliya waa gabar dhalin yar sawiradeedii hore iyo kuwa haddaba waan arkay shaqo badan oo badan ayay qabataa oo aanan wax badan ama kaba fiican mid ay abwaanadu qabtaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Faadumo waa mahadsantiin Jagwan 1 2 كل بصدق بسم الله الرحمن الرحيم تمام ku haboone yaa maali jirayay kolkay midhidhaadii gaadhay ka midoobe maankiyo qalbiga mudanayaashiiye adigay kalsoonida mugale kuguma jeerteene madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka عبدالرشيد خليف حاشي وحان هاي يا مالي جريي كل كي ميدادي قادي كمي دوبي مانكي
mudanayaashiiye adigay kalsoonida mugale kuguma jeerteene madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka waxaa mahad leh in shirkii uu gabagaba inoo marayo oo aanu sugayno in madaxda ay inoo xiraan mar dhow ayay noo imaan doonaan inta ka horeysa waxaan doonayaa in aan soo dhoweeyo sheekh dandaawi oo shirkan furistiisana qayb ka qaatay xiristiisana inuu qayb ka qaato uu inoo mariyo qasiidooyin nabi amaana dandaawi soo dhow اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلوم يا سر الوجود محمد دلك أمدو حق الله يهي دلك أمدو حق الله يهي ليحي مكاده مالنتو مرسويري جهليجي مقونشي أمدي مسيو محمد اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلوم يا سر الوجود محمد مالنتي لديل شيو معراج كنبيجي مالنتي لديل شيو معراج كنبيجي مصطفى وحبيبكي ماذا شيء مخلوق أرك نقوم مري صلاتك هدية أقوم تيستو محمد اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلوم يا سر الوجود محمد مالنتي إسرائيل ملقي جبرائيل مالنتي إسرائيل ملقي جبرائيل هلكي كماجيو منتهانا حبيبكي كليجي مشاحي وهلكي كمارمو محمد اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلوم يا سر الوجود محمد حبتك لي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي وانهردو حبابي يا إهلو هارقو يساري من هو دي قور حدير صوحن بابيريو مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي هوجي ما يروح كوهو ساديو وهلا وحو وهليه وانكو هيلونو هيبدلو مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي هيبدي لسي كان هقرنو
هوري هجاجي هرجشو هركو قاري هوضه ودشو مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي murniki ka soo iri daraa jiirta laga maagayay inuu maanta guul muuqatiya midha ka soo saaro ummadana mideeyay waa lagama maarmaane madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka maskaxiyo aqoon durugsan iyo garasho miisaan leh miyir socod mas-uul daacadoo miigan baa tahaye madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka maskaxiyo aqoon durugsan iyo garasho miisaan leh miyir socod mas-uul daacadoo miigan baa tahaye madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka xilkumaanta kowma oo ku soo maraye mugdi hawshu kaagama jirte mari taariikh toosan tashigiyo mashaawiradu waa lagama maarmaane lamalaysa shicibkaagu waa badi maqaawire xilkumaanta kowma oo ku soo maraye mugdi hawshu kaagama jirte mari taariikh toosan tashigiyo mashaawiradu waa lagama maarmaane lamalaysa soomaali waa badi maqaawire maangaabka iyo qaar ku mabay miirashada dhiiga musuq maasuq iyo tuuga iyo xuma maleegoo dhan kuwa magac islaam sheegta oo kala mabaadii ah doqon lagu malxabsado dilaal xumaha maashiishay sidaad ula macaamili lahayd adiyo maankaaga maangaabka iyo qaar ku mabay miirashada dhiiga musuq maasuq iyo tuuga iyo xuma maleegoo dhan kuwa magac islaam sheegta oo kala mabaadii ah doqon lagu malxabsado dilaal xumaha maashiishay sidaad ula macaamili lahayd adiyo maankaaga shicibkana mid baan odhanayaa lagama maarmaana nimayow mas-uulkii nimada moobiyaysaane madaxweynaha dooratan uma miciintaane nijahaad iswada jiidatan ood ismalagtaane shicibkana mid baan odhanayaa lagama maarmaana nimayow mas-uulkii nimada moobiyaysaane madaxweynaha dooratan uma miciintaane nijahaad iswada jiidatan ood ismalagtaane kolba mala awaal beena
midigta isqabsada oo haddeed meel u wada jeesta marti dunida yaydan ku noqon maanta dabadeede milgihiinni waa kaa mar kale soo magol baxaye maamuusta calankiina iyo dhowra magaciina kumitida macmuudkana irkada mowqif wada yeesha ducadana miciisada xaqah lagu macaashaaye kolba mala awaal beena iyo muran qabiil dhaafa midigta isqabsada oo haddeed meel u wada jeesta marti dunida yaydan ku noqon maanta dabadeede milgihiinni waa kaa mar kale soo magol baxaye maamuusta calankiina iyo dhowra magaciina kumitida macmuudkana irkada mowqif wada yeesha ducadana miciisada xaqah lagu macaashaaye kolba mala awaal beena iyo muran qabiil dhaafa midigta isqabsada oo haddeed meel u wada jeesta martid muusta shicibkana mid baan odhanayaa lagama marmaana nimayow mas-uulkiinimada moobiyaysaane madaxweynaha dooratan uma micintaane nijahaad iswada jiidatan ood ismalagtaane kolba mala awaal beena iyo muran qabiil dhaafa midigta isqabsada oo haddeed meel u wada jeesta marti dunida yaydan ku noqon maanta dabadeede milgihiinni waa kaa mar kale soo magol baxaye maamuusta casiimad mug weyno miisaankeedu culusyo meel wacan ku taalo muuqeedu dheeryahay madaxii dalkeenniyo muraayadiisii baa tahay xamar kama maarmo muruqan ku faaniyo garabkaygii midigii casiimad mug weyno miisaankeedu culusyo meel wacan ku taalo muuqeedu dheeryahay madaxii dalkeenniyo muraayadiisii baa tahay xamar kama maarmo muruqan ku faaniyo garabkaygii midigii meel bay bogtee muqdisho mowlan barye muqdisho meel bay bogtee muqdisho mowlan barye muqdisho magacaagii dheeraa muqdishoy mar soo celi magacaagii dheeraa muqdishoy mar soo celi meel bay bogtee muqdisho mowlan barye muqdisho meel bay bogtee muqdisho an mowlan barye muqdisho magacaagii dheeraa muqdishoy mar soo celi magacaagii dheeraa muqdishoy mar
madaxda waa nagu soo dhowdahay mar dhow ayay inoo imaan doontaa waxaa ka codsan lahaa dadka gadaal fadhiya inay hore u soo dhowaadaan si aan isugu dhowaano qolyaha kaamirada ayaa ay weydiiyeen sidaa yeelo si ay wax inoogu qurxoonaadaan isku maqallo isku meel la aan fadhino si dadka kale ayagana ammaanka arrimihiisa ka shaqeeya ay ula socdaan marka waa mahadsantihiin soo dhowaada madaxweynayaasha ayaa mar dhow inoo imaan doona sacab aan ku soo dhoweyno iyo laafurnaan